xaaladda guud meesha ay maraysa Soomaaliya coronavirus waxaa laga helay oo xaalad cusub la helay 46 qof 24 saac ugu dambeysay lab waxa ay 33 dhadigna waxa waaye 13 28 kamid ah dadka laga helay da'dooda waxay u dhaxaysaa 20 ilaa 30 jir taasoo u dhiganta 61% dadka laga helay 41 xaaladood waxaa laga helay gobolka Banaadir 5 xaaladood waxaa laga helay Puntland tirada guud ee dadka laga helay waa 436 5 qof ayaa u dhimatay tirada guud ee dhimashada waxay noqonaysaa 23 tirada guud ee bogsatay wali waxay ku taagan tahay 10 waa xaaladda guud waxaan rabaa inaan mar labaad dul maro ka hortagga inuu aad muhiim u yahay in laga taxadaro cudurkan sidii loo xakameyn lahaa waa waajibna wada saaran in lagu dadaalo nadaafadda in la iska ilaaliyo meelaha buuqa iyo dadka badan ay jiraan in marka banaanka loo baxaayo afka la xirto oo maskar in la qaato ay muhiim tahay wixii